tegayo gorse oo maanta tegayna xagin tegayna Marcus Square baan hadda soo galeynaa waa habi 18 May baan leenahay 18 May maanta afraad baan ka qayb galeynaa marka wiigiiba had 18 May gaan u saamaleynsanay marka shaqada qaranka waa in la qabto maanta hawsha waa shaqada inoo traffic soo baan daawada ka soo degnay in waxaan u soconaa meeshii lagu dabaaldegayay wiig kale oo shaqadu way socotay marka ayna masha isugu dhimeen ku dabaaldegno qaranimada Soomaaliland ay ka soo wareegtay 12 sano dhamaanteen inagoo gacmaha isku haysana mootogana sanadkan waxa weeye midnimo qarannimo iyo walaalnimo marka insha Allah taala waxaynu doonaynaa dhamaanteen intaynaan wax kala bilaabin inaynu qarankeena ugu bilowno duco ilaahay qarankeena ha xafido cadawgiisu ha jabo amiin ilaahay hayna mideeyo amiin inta ila kala qaybinaysa ilaahay ha jabiyo Soomaaliland ha noolaato Soomaaliland ha noolaato Soomaaliland ha noolaato ilaahay ciyaalka iyo yaryarka oo soo kacayaba uga dhigo kuwii khayrka iyo nabadda iyo midnimadaba halka ka sii wada ilaahay idinki amiin salaam alaykum aadiyaan dhamaantiin salaamaya marti sharafta mujtamaca reer Soomaaliland ka soo qayb gashay munaasabada qiimaha iyo qaayaha leh ee 18 May anoo ka hadlaya afka Somaliland UK Somaliland Alliance ee soo qaban qaabisay xafladan qaaliga waxaan idinku salaamaynaa mansabka iyo darajada qofka ku sugan yahay aad iyo dhamaantiin salaamaynaa xuska maalinta qaranimada Somaliland maalmo murugo leh oo badan oo adag bay soo martay muhiimadda iyo ahmiyadda leedahay nin ragga uu garanaya nacasna loo sheegi maayo ilaahay ha u naxariistee sooraan baa laga hayaa xil gute anuun baa istiray haddaanu nahay UK Somaliland Alliance waxaanu nahay group ka kooban professional youngsters isku dhex jira run with different backgrounds waxaanu u kacnay inaanu qarankayga difaacno oo run ahaantii aan u heelanahay inaan markan aragnay weerarada badan ee had iyo habeen ee propagandada leh ee xabadda leh ee hadalka xun leh ee si walba Soomaaliland loo weerarayo ayaan u adkaysan weynay inaanu annaguna u kacno Soomaaliland aanu difaacno afiya dibba insha Allah ما شاء الله الله يسلمك وندوي ولالكي الله يسومالنا نقول وصل عبد الرحمن شاقي الله ما بغى يسومالنا runtii wax aan inaba caadi ahayn oo hadal lagu soo koobi karin xafladda qaranka 18 May to all my Somaliland people love you wherever you are in this world Somaliland iyo tifiyada jooga inay iga gaarsiiyaan inaan salaamo kow ciidanka qaranka laba madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland golayaasha qaranka shicib weynaha Somaliland meelay joogaanba haddana waxaan ku soo dhaweynaa maadmo Faadmo Saciid oo si fiican aad u garanaysan dhamaantiin sacabka Assalamu alaikum Somaliland ha noolaato Somaliland ha jirto ha joogto calanka Somaliland ha weligii yaliibayaan u dhicin soma wanaagsanidin Happy 18 May laba erun baan doonaya anigu inaan idiin sheego oda goobtan aad joogtaan ma garanaysaa waa goobtii dagaalkii adduunka ee labaad markii uu dhammaaday ay reer Ingiriis oo dham iskugu yimaadeen ee ay ku feesteeyeen ee dagaalkii dhammaaday ay maxay ku xamdi naqeen maanta inuu calankii Somaliland khayriyadii Ingiriiska uu ka taagnaado maxaa tiraaheen si fiican
1960 26 June waxay maalintii uu Ingiriisku uu ina siiyay xorriyadii xorriyadaas waxay ahayd xorriyad wuxuu ahaa maalintii calankii Somaliland la taagay meel kasta ama region kasta oo af Soomaali lagaga hadlana calanka Somaliland wuxuu ahaa kii koowaad ee la taagay ee independence-ka xorriyadnimo loo istaagay ee loo bilbiliyay waa 1960 maanta waxaynu joognaa 2023 Somaliland ha jirto ha joogta magaceedu wuxuu taagnaa 62 sannadood baynu maanta jirnay United we stand together we stand to work to fight for Somaliland are you with me are you with me Somaliland noolaato Bismillahir Rahmanir Rahim shacab weynaha ka joogay reer Somaliland adna Aadan Ismaaciil madaxda kale qaranka halka fadhida dumarka iyo caruurta quruxda badan leh ee Somaliland ka soo jeeda halkan maanta iconic location London ku taala xarumaha ugu waaweyn ee isugu yimaado London diblomaasiyiinta caalamiga ah reeraha ay joogaan maanta halka boqolaalka isku soo baxay kumaanka isku soo baxay salaanta islaamka ayaa idinku salaamay waxaan ilaahay salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh salaamka bacdi waxaan rabaa inaan ku bilaabo dad badan baa raba inay maanta marka ay wadankeena wax yar ka dhaceen ay nagu tilmaamaan in Somaliland dib ka jirto waxaan rabaa maanta halkan inaan sheego anigu waxaan ahaa wasiirkii hore qorsheynta qaranka waxaan xog badan ka ayaa wadankeenu in ku yaalo meel qubcad aad u dhib badan oo mashquulado waaweyn ka taagan yihiin wadamada taariikheena oo dhan dib ka taagan tahay kuwii ugu waaweynaa bay maanta ka taagan tahay waxa aan 2 sano muujinay resilience wax ka duwan umadaha kale inagoo itaalkeenu yar yahay ayaa waxaan muujinay inaan dhisnayn institutionno inaan dimuqraadiyad samayno inaan madaxweynayaal isku dhiibno inaan baarlamaan abuurno waan leenahay dhaliil laakiin dhaliisheenu way ka yar tahay wadamada dariskeen oo dhan yaa bilaynoo sheegi waxaan jirin way ka yar tahay waxaan maanta halkan ka sheegayaa wax kasta oo jira wax ka adag baan soo marnay been sheegi mayno wadankeena meelo way jiraan dhib ka jiraan maanta waxaan ilaahay ka baryaa inaan dhammaanteen gacmaha isqabsanno inaan gacmaha u haadino inaan idhaahno dad islaam aynu nahay cadowgeenu waxay rabaan inay nagu tilmaamaan in Somaliland isaaq tahay anigu waxaan ahay nin reer awdaa waxa Somaliland badan ay naga qaldantaa dadku waxay idhaahdaan waxay muujiyaan waqtiga halganka iyo dhibaatada iyo dhibtii la soo maray waa la soo maray yaa anaga sheegana haddaan dadka la sheegana anaga sheegana anaga joogna anaga ku barbaarnay diyaarado dad garaacayay dhib iyo qax iyo dhibba laakiin qaran baan dhisanay kii ka soo jeeday awdal iyo kii laascaanood ka soo jeeday iyo kii Hargeysa ka soo jeeday oo Burcaan iskugu tagnay oo Booramaan iskugu tagnay qaran baynu uga wareegnay dunida meel kasta waa la idinka daawanayaa waxaa la isweydiinayaa reer Somaliland ma soo bixi doonaa ma la arki doonaa tiradooda ma la arki doonaa muuqooda ama waa la muuqdaa ama waa la maqnaadaa marka dhammaantiin happy 18 May Somaliland waa soo baxdiyo nuur sacabku qarin karin sacabku qarin karin waxaad ku leedahay wala laba horaare hagarlii wax ugu qabo qaybtani waa qaybtii koowaad ee barnaamijkii aanu kasoo tubnay banaanbixii weynaa ee ka dhacay bartamaha dalka UK gaar ahaan magaalada London dad aad u tiro badan ayaa isku yimi barnaamijku aad buu u dheeryahay laba qaybood ayaanu ka dhignay qaybtan waa qaybtii koowaad qaybta labaad dadka ayaanu dhex qaadi doonaa oo aanu wareysan doonaa waa barnaamij aad u xiiso badan la socda qaybta dambe oo soo bixi doonta berito insha Allah